بسم الله الرحمن الرحيم ضمان ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan galab wanaagsan subax wanaagsan waqti kastoo idin tahay taariikhdu waa waxyaabo badan oo cajiib ay leedahay waxaan aad ugu farxay waxaan arkay muuqaal kooban oo uu duubay howlkar taariikhyahan maamule iyo aasaasyaashii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ninkii ugu taariikhda dheeraa Saciid Maxamuud Xaaji Saciid Sona marka haddii aan ka sheekayno marka wakaaladda wararka Soomaaliyeed iyo warqabadkeedii iyo arrimaheedii la weydiiyo ama saxaafadda Soomaaliya la weydiiyo waa dadka ugu taariikhda dheer oo in muddo xil ka soo hayay wakaaladda wararka Soomaaliyeed iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Saciid isagoo marka dadka uga sheekeynaya barnaamij kooban iyo taariikhda uu soo maray waxa uu yiri marka 30 sano oo idin joogay iyo 30 sano oo dawladda u shaqeynayay iyo intii aan shaqaale ahaa iyo intaan wax bartay iyo wixii dawladda aan arkay ayaan idin taabanayaa maxaa jira 30 sano shaqeynayay 15 sano kamid ah madax baan ahaa madaxda ugu dhow dadka dawladda ah marka inaan idin taabtaan rabaa aan idin tuso Soomaaliya ma ahayn waxaan hadda aan nahay ma ahayn marka waxaan rabaa in idin taabto 59kii markii aan shaqaalaha dawladda noqonay meeshaan ka bilaabo meeshii la sheegay waqtigii ugu horeysay la dooranay baarlamaanka ugu horeeyay ahaa hadda emotion wax yaani dad fiyooba ma ahayn saan u waalay maxaa jira waxaan ku dhex jirnay Talyaani iyo gumaysi kale waxay noo ahayd maalin waqti weyn magaalada farxadaas iyo qiimahaas aan wadnay oo qabnay anagu reer magaal baan haynay baadiyaha lagama qabin seemaba garanay wax socday marka saas loo qaybsanay waxaan qabnay yaani dad hawle qiimo leh oo doonay dawladnimada waxa noo soo 60kii anigu waa yaraa ma aqaan hadda ma idin sheegay waxaan jiray laakiin waa noolaa oo qof dadka magaalada ka mid ah waxaan wahaa maadaama aan boosada ka shaqeynayay qoladii ugu horeysay oo wafdigii ka yimid hadda Soomaaliland baan dhihay laakiin Noordkayga iska wadan waxa aqoon jiro waagi ayay iga dhagan tahay qoladii Noord baay ay qab Noordka yimid yaani markii ugu horeysay arkay taarar baan maadaama taarar boostaal ah taararkan u geynaynay waxa la dejiyay baarlamaanka meeshii ahaan jirtay baarlamaan sargudoon hadda baabaaday ayaa la dejiyay waxa keenay oo badi ayaga akicina anagana aan si aad u aqoon waxa ahayd 56 ba hawd ayagoo soo jeeda la wareejiyay waa daris bay leeyihiin waa arkay wax dhacay waxa 56 ayaa xeelay salaas intuu garbar maxay qabri dahrayn ayuu wuxuu ka yiri waryahay Soomaaliya hadda tihiin war bahweyntan soo galo hadda Soomaaliya waxaan niraano bahweyntan soo galo Ethiopia qaybteena ka qaat aray nagu sii kordhinaysa marka laakiin caradeena waa kala badnay more nationalist wadanimada iyo waxa maxaa jira qofku hadduu xuduud la leeyahay balada kaaga dhow kaaga jacayl badan waad ogtiin Soomaalida waxa aad u waxay reer magaalkeena iyo qoladaas reer baadiyaha dadka kale waxay ka ogaayeen malaha waxa 60kii marka la qaadanay meel secondary la yiraahdo ma qaanada waxay magacooda secondary la jiraan wax loo bixi ma qaana ayaa calanka laga saaray calanka la saarayo ma ahayn anagu kaan haysanay wuxuu ahaa kii 6 bari ka hor laga saaray Hargeysa oo ka nasiib ka saara lahaa ayaa keen ayaga raggoodii baan soo saaray calankaas ayaan waxaysanay markiiba Ethiopia aad bay arintaas u dhibtay Soomaalidii oo wada qeereysan maxaa jira waxa anaga dhigteena ku jira iyaguna dhihi jireen manilk mina markii Soomaalida qaybsanay inuu yiri yaani Soomaali ma aha wax nation liireedo ma aha waa qabaa'il isnacab xalaa waxa kaliya aaminsan yihiin Ethiopia loo yar u yihiin halkaas boqortooyada iyo boqortaan u yihiin caradaas iyadoo qabo ayay dhacday 63 waxa dhacday Ethiopia marka uu qaadan waayay inaan midowno oo midnahay oo wuxuu sheegay dagaal ba ka soo qaadeen
waxaa iskugu keen aaday dagaalka markuu soo qaadayay in westiga iyo dalalka ay ku dejiyeen war kuwaan mar dambe iskuma dareen maxaa jira iyagiina waa nala yaabeen asagiina waa naga baqay dagaal buu soo qaaday isla waqtigaas 63 waxaa la dhiibay NFD oo soo jeedo 80% ay leeyihiin Soomaaliya rabna ballan laga qaaday ee Ethiopia inaan Soomaali midnimadii sii wada maxaa jira wax loo adkeysan kara ma waxay markaas isbedelay Cabdirashiid Allah naxariisto Prime Minister buu ahaa waxa uu raajay inuu yiraahdo war dad baan ka haystaa ummad baan ka haystaa dalal baan naga maqan dalalkii westiga wax yiraahdeen dhageysta adduunkaanu sidaa waa xaalad waxaa la idin ogol yahay saddex dal baa idin la shaqeynaysa Ingiriiska maxaa Mareykanka Jarmanka iyo Mareykanka iyo Jarmalkii kale Talyaaniga ciidamadoon intaas ka badan karaan war hadda nin baan ugu soo duulayo nin baan haddana la qabsanaya maya taasana ku xiray markaas waa marka anagana siyaasadda isbedeshay sidaan west oo hayna cadda Allah naxariisto isagu nin wax waa taaliye ku koray oo qiimaheeda iyo qaarta westiga maxaa jira waxa labada lagu kala yaqaana westigu waa dimuqraasi isbedbedel laakiin shucuuriyada hadda tagtay ninkii madax noqdaa waa dijinaysa hees baa ku xigta marka anagu ma rabin oo diyaar maahayn diin ahaan iyo dhaqan ahaan dad furan baan ahayn laakiin qasab mar hadii loo tiiday ayay noqotay dawladda inay ku dhaqaaqaan waxaa la igu goostay Jamaal Cabdi Naasir ayaa buntuq yaraad xakiim ka nasiiyay waa xukunka buntuqa aan iskaga celinayno Ethiopia markay iskaga ma celin xoog aan lahayn laakiin waxay la yaabeen inaan meedka ka qaadan weyno qabiiladeena anagu isku sii jeesano ma noqon waa iska celina waana jaban wuxuu ahaa Cabdirashiid inuu yiraahdo election baan ku jirnaa doorasho wuxuu yiri doorashada hala baajiyo lama baajinay gacanna waa codkan ku bixinayna midna ku dagaalamayna marka halkaas yaani ahayd waxaan ahayn marka waqtiga waxyaabo marka ugu horreysay Soomaaliya aan ahayn ilaa 67kii dad soo kacay awood badan ismidan midnimadooda haysta rabaa inay soo celiyaan bal arka Ingiriiska markuu naga goostay waxa u badnaa yaani Somaliland hada ayaa u badnaa dadkii goyn caadifada seenooys waa xiriirkan goyn wuxuu rabi lahaa inaan Soomaali hadaan nahay aan Commonwealth ka gallo oo maadaama naga yimid dhibaatada marka dawladnimo haysanay koortiyaal baan lahayn joornaalaan lahayn waxa dimuqraasiyada la yiraahdo dhan baan haysanay doorashadii ugu horeysay 67 Cabdirashiid uu bedelay ahad labadaba Allah u naxariisto waxay ahayd taariikh Afrika oo dhan laga xuso dawladda kaliya oo si nidaam la isku bedelay markaas ka caan baa bilowday markii ninkii ku dhagaabo waa ka fuqway laakiin waa bedelay waxaan 1967 waxaan noo yimid kan count oo markaas madaxweynihii dhisay Zambia wuxuu la yaabay cashadii marka loo soo dhigay aadan cadda iyo Cabdirashiid oo isaga fadhiyo oo qoslay markaas this is waxaan anagu jeclaan inaan noqon sidaan macna sharaftana loo hayo laakiin maxaa markaas jiray nimankeenaas xoog galaho magac leh alaabeeni baan wadan waxa la yaabaysan wasiirkii yimaadaba reerkiisu la yimaada maxaa jira hadii wax kala ma leh baru doorasho raba waa inuu cid iska dhaqaaleeya corruption baa jiray aan ila loo dayin accountability ma jirin waa markaas isaga gaarnay doorashadii si loo galo xisbiyaal baa la furay dimuqraasiyad aan galayna 80 xisbi ayay gaareen ilaa calaamada la waayay mid dab midna biyo midna calaamad baa la waayay 80 baa gashay doorashadii corruption intuu gaaray ilaa kulligood 80kii intii ka soo baxdo la soo doortay xisbiga laga isku tagay maxaa jira meesha dadka lagu dhacay oo lagu boobay corruption salka ah halkaas markuu ku damnay waa 69kii ka caan ka dhashay oo feestadii waxaan isleeyahay masuqmaasuq iyo adduun oo ka xorooday bas way anaga kuwaas la tuuray dawladnimo security xoog leh corruption kii oo la qabtay waa markii ugu horeysay wufuud la diraayo xamar intay ka tagaan gobolladana soo wareega oo qof walba wuxuu sameyn jiray meeshuu mari jiray ay soo qabanayaan niman isku xiran oo haysan
بوليس arrimaha yani boolisigeenii siyaasadda dibadda cirkaasay martay waana la bartay buufuud baa noo timaada nimankan Afrika inta kale anaga xoreynay oo yani ciidamo anagu aan leenahay ayaa tababari jiray Mozambique iyo tagi jiray Angola iyo dagaalka wastiga dhan waxa uu ka cajaa'ibay anagii waanaga shuuciyada galay oo markii maanta hub kala rabnaa anaga waxa noogu weyn wuxuu ahaa shanta Soomaaliyeed inaan gaarno maxay noqotay meesha ugu sareysaan gaarnay Africa 1963 73 waxay ahayd taariikh yaab leh maxaa jira waxa madaxweynuhu diiday inuu aado shirka oo iduna fadhida oo iduna markaas waa markay cusub tahay markay xoogaa bay soo socotay qiimo weyn bay leedahay uu diiday inuu aado wuxuu yiri ajandada in lagu daro Soomaaliya arinteeda ma ahayn oo dhulalkan la ka haysto Ethiopia naga haysto Ethiopia kuna wasiirkooda arrimaha dibadda isla maalintaas wuxuu yiri wax aan qadiyad aan ka wada hadlay ma jirto ayaga laftooda Ethiopia oo aan sii deynay iska daayna wax deynay waxaynu Afrika waa shirku socon way waxa la soo diray madaxweynaha Nigeria dawladdiisu soo diray in madaxweynaha qaado laba shardu qodsaday mid waxa weeye arin ajadada lagu daro midda kalena next year 74 ka in Soomaaliya lagu qabto anagu dawladdu waxaan ka raacay maadaama ha madaxa Soomaaliya Ethiopia markaas aan tagnay waa markii ugu horeysay xeelad salaasaha live oo arkay aan salaamay biyaar waxa la sakan waa ninka qatarka codka weyn tacbaan uu ila noqday arsaasa I hope inaysan idagay soo reeyay waxay noqotay special arintii waa la qaatay waa looga hadlay 74 kiin waydi oo iyadoo dhan isku timid Muqdisho meel aan kala geeyna mar guriyaha dadka la geeyay waxaan maraan sheekeysanaynay doctorka gurigooda dadkii dhaqnaabo ahaayeen wafdi waa la geeyay wafuudi qaar kamid ayaa la geeyay guriyii boqortooyada waa qaadi waayay waa sharaf aan gaarnay waxa ahayd Afrika inaan maamulno waxay ahayd urur la shir la yiri waxa la qabtay shirkii labaad Afrika oo dhan iyo dadka madow oo dhan ayaa festival loo sameeyay mashruuc oo ah artiga la soo bandhigayo hidaha dhaqanka la soo bandhigayo wafdiga Soomaaliya aan Cabdi waxaan hogaaminay wasiirka arrimaha dibadda Umar Arte anigana waxaan had warfaafinta ayaan matalay labadeena madax u ahayn waa bari ayaan la socotay ninkii tiyaatarka madaxda u ahaa nala socday dayuuradda aan raacayna dayuurad baalootyaashu waxay ahaayeen Soomaali anagu waa dhan markaas Afrika waxaan ka bilownay Zambia 6 dal baan sii maray Rwanda Burundi kulligood baan maray ilaa aan ka tagnay Lagos waa midii anagoo wafdiya naloo ogolaaday inaan Lagos ka tagno Kaduna oo meesha islaamka nala geeyo basasna la siiyay qofka markuu dhimanayo wax kale weey Abdullah Umar Arte oo madax noo ahaa dawladdu soo raacay wasiirka ah aniga oo inta kala watay inaan la raaco baska bay wax iga dhul jecel ma oo waxaan jeclahay magaalooyinka arko habeenkii baan xanuunsaday baabuurka meeshaan ka raacay lahaa nimankii raacay ninkii wariyaha ma aqaano madaxda ahaa magaciisa ma xasuusto iyo 5 wariyaal iyo ninkii baaroodka ku xigay intiiba baskii intuu hurdooday ninkii waday ayuu ku xijaabtay halkaas يعني فيستك بعيد that was يعني هالكاس انقر لكن قدي محمود وحني هوران ودن قبيل كاس والله ابطي كربشي كاس وحسن راد كيني وان كلابن waxay dagaalkii waa nagi galay dagaalku markuu dhamaanayo oo nala de ruush iyo balaayo ba soo duushay annaga ma ahayn wixii dagaalamay jabhaday ahaayeen oo jabiyay adinku ma dhawa garan kartaan wixii joogay wafdi waxa warfaafinta wax meel hubnaga qolo wastiga waa naga xirmay shuucidi waa ka tagnay meel dhaxan soo istaagnay China ayaa dawladdu fikirtay in hub laga doonto loo tago waxa loo diray wasiirkii warfaafinta Cabdi Qaasim anigu wafdigan kamida yani waxa ajaa'ib kale anagu waxaan leenahay maxaa naga dumiyay ninkan wuxuu noo sheegay wuxuu aan u tagnay madaxweynihii
ayaana qaamaray sida naloo qiimeynayo ninkii markaas haystay magaciisii doctorka Deng Xiaoping waa ninka China-da maanta siday tahay ka dhigay waa ninka China u soo jeediyay waxa shuuciye ahayd waa adkeyd balaaya ku sameeyay ninkan wuxuu yiri hanti wadaag Soomaal wuxuu yiri ninka mukulaasha midda madow iyo midda cad asfaar ay qabanayso shaqadan ka rabnay waa okay xisb uma xirrin ninkii soo dejiyo nin cabqari oo Faransiis iyo adduun wax ku soo bartay philosopher buu ahaa wuxuu yiri waxaad yeelaysaan talunisi wuxuu yiri maanta jab weyn baa idin gaaray waxaan idinku gaaray qola eastna lama haysataan westna lama haysataan waana idin qaban waayay wax dhibaateen wixii anaga hub yar waa idin heynaa laakiin waxa idin ma tarayo waxa idin sheegaynaa maanta madaxweynaha waxaad iga gaarsiisaan fariinta ah dal ciidankiisu soo jabay oo saano kale u jabay dawladdiisu siima jirto ee change sameeyo isbedel sameeyo waxaan qabaa horta aasaaska halkan ka soo gala halkaasi ahayd ma la sameynin waxayna iska sii wadanay haddii wixii ka soo baxay waa ogtihiin 78 ilaa 91 waxaan dhaxagalay balaayadii dhacday waad ogtihiin waxay ka dhacaysay centralka laga bilaabay waxaa lagu tagay northka marka soona haddaan nahay nalooma ogoleen wax ka baxsan dawladda warkeeda marka waan tumanayna xanuunka jiray marka waxaa xasuustaa waxaa la leeyahay maxaad qabaayil u noqoteen u midoobi weyn aniga reality-ga ayaan ognahay waxaan nahay dad qaybsan qabaa'il ah qabaa'ilka mar dambe idiin sheegi doonaa dowladnimadii waxaan ku bedelinay qabiil baan ku duwanay waxaan dhuminay wax kastoo qiimo lahayn ayaan dhuminay patriotismidii yani wadanninimadii jacaylkii ummadeennii isla tuman jirtay waa rabshaana kala dhex gashay marka catow ayaan ku jirnaa iyo maxaa jira waxaan ka cabanaynaa wixii nala gaaraysay dadku waxay leeyihiin maxaa marka laakiin qaarkiin uga samri la'yihin waxay uga samri la'yihiin dowladnimadeennii iyo xooggeenii ayaan la isticmaalay isku burburinay waxaan isku burburinay dowladnimadeennii iyo sharafteen waxaan ku burburinay inaan maxaanan leenahay qaran dumis wey hadday qaran dumis ahaayeen ayagii aan burburinay maxaa ka soo baxay dhibaatada nagu dhacdoon ka samri la'aan waxa weeye marna dowlad jirta ayaan badbaadinayna ayaan dad ku leyn markii dambena midaan jirin inaan abuurno ayaan dad ku leyn islayn leen noo soo hartay marka labadaba dowladda dhisay mid dhisan duminteed iyo midaan jirin ayaan ku dhammaan maxaa burburay waxaa burburay hal identity-geen wixii ilaahayna siiyey diintii naga dhaxaysay afkii naga dhaxeeyey yacni historyga naga dhaxaysay culture-kii wuxuu dhan baan burburin maxaan bedelnay waxaan raadinaynaa kan waa dheer iyo anu waa gaabana inaan waxyaabo minima oo qiimo lahayn inaan isku kala soocno soo ciddaan ka badinay wadajirkii anigu waxaan qabaa Soomaaliya maanta waxaa ila tahay idin sheegay waxa weeye waa dal ummad ay bililaqaysteen dadkii ehelka u ahaa inay badbaadiyaan cadowgiina ka faa'iidaystay saaxiibadii aan carabta la islaamka la ahayn iyo kuwii kalena na tuureen annaga ayay marka dhibtu naga tahay waxaan isku geysanay ayaanan haysan laba shay baan haysan qabiilkii oo anigu qabiilka waa idin sheegayaa maadaama aan siyaasadda cilmiga la bartay qabiilku wuxuu ka mid yahay 3 qaybood oo bini aadamku u yahay isku aruuriyo koox u noqdo qoladkan waxay yiraahdaan interest group mid waa qabiilka kaas waa kii ugu horeeyay oo qofka dhalasho lagu haysto midna amalka ama warshadaha aado ama beeraha aado dad amal isku bahaysta weey kuwa kalena waa kuwa ideology fikrad diin ha noqoto ama fikrad ha noqoto saddexdaas loo waxaystaa annaga stage-ka aan joognaa waa kii qadiimka ahaa waana wax fiican oo ummadu isku wado
oo qiimaheeda ku muujiso maanta ma jirneen haddaanan kaas haysan labadan kale ma gaarin inaan isku cayno oo bala ka dhigno maaha inaan ku nafisno anigu reer hebel baan maxaa jira waa part of interest group maxaa marka bedelay ma gaarin mid aan fikrad ku qaybsano haddaana gaarin inaan bahal ka dhigno maaha waxa laase xaqiiqadu waxay tahay tribalismada waxaan u dagaalamayna oo aan u dhidhimanayna markaan dowladda ka soo horjeednay waxay ahayd cadaalad darro iyo qabyaalad iyo corruption iyo iimaan darro aan isku waxaynayno qabiilkii haddii la waayo waxay dhaleen baan raadinaya taasaan la dagaalamayna marna kuma dagaalamin resourceska iyo powerka saa u qaybsan lahayn macno nooguma jiro maxaa jira ma heli karin tan hadda la sameeyo 4.5 ka leeyahay anugu kuma jiro number mali maxaa jira dadka waxaan anigu intaan waxaad tihiin kulligiin baa anigu ah maxaa jira nin Soomaaliya qabiil kasta leh yani ayaanahay 4.5 ma jirto waa xaraan been laga sheegay ma garat waxaan naga maqnaa oo raadinayna waxa way cadaalad sinaan sharciga hortiisa isku naxariisho iyo humanity ayaan raadinayna inta diintu qabto ayaan raadinayna waxyaabaha cajaa'ib kale waxa way waastiga nimanka waa dalalka ugu cadaalad badan maanta adduunka jira yani cadaaladdu ma aha inaad boqolkiiba boqol dhulka hoostiisa waxa la yiri inta cirka ka hooseysa oo ilaahay ka hooseysa cadaalad ma jirto laakiin waa loo kala dhow waastiga ugu dhow cadaaladoodu laga goorma markay gudahooda tahay dibaddu ma aha cadaalad dibaddu cadaalad ma aha waxay dibaddu ku isticmaalaan cadaalad ma aha annaga waagaan dowladda ahayn dibaddan ku xoog lahayn gudahana waa isku dhex jirno waa isqasayno waa is jabinayno waxaan u dhimanay cadaalad darraan sinaan la'aan ayaa u dhimanay odayaal qabiilka wax ku qaybsada uma dhiman waxaan idin sheegay qabiilka mid xun baaba anagu keen hataa qabiilka ma ogta qoladii noqoto xarfadiisa taqaana nimanka carabta waa naga fiicay maxaa jira qabiilka ma yaqaan waar istijaabiyeen hal qabiil baa loo yahay awoodiis haddii aad tagteen Yemen qaar baa taangiyaar iyo dawladda leh qabiil hebel yiraahdo qaar kan wax leeyahay laakiin qolo walba boosiskeeda yaqaana anagu boosisho man kulli dagaal kuma aad kala arkaano hadal kuma kala arkaan ma kala reemayno maxaa way marka qabiilkaas marka waxaan u baahanahay principles kaasaas waxaan idin sheegayaa 30 sano kadib on dowlad ka soo shaqeeyay oo aan madax ahaa oo siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiray qabiil ma noqon karo dowlad qabiil ma noqon karo forward iska badhaafo wax qabiil laguma saleyn karo dowlad waxa lagu dhisi karaa cadaalad iyo sinaan iyo wanaag waxyaabaha iimaan la sii danacsi waxa qabiil goboladana waa qabiilkii cayilay waa naaxay maxaa jira waagi hore labadii qolo isdirirta waxa dhijinay reer hebel isdiray hadda dowladda isdiray dowlad hebel iyo dowlad hebel kiibaan cayilin qabiil meel kuma gaareen islamic values oo taqaanaan oo cadaalad ah oo sinaanta ah oo wanaag ah ama angal ama 30 sano oo soo jirnay oo hore waxaan ku jirnay Soomaali weyn wax la yiraahdo xoolaheena ku waxa xasuustaa inta ay xukunta oo wasaaradda warfaafinta kamida badidood ama NFD ka yimid ama Ethiopia ka yimid ama Djibouti ka yimid waa maxaa jira anagu qeyraysanay waa Soomaali anigu Ingiriiska ma aqaan kana galay kii kala Faransiis mid baa galay Soomaali waa bahalkaas 30 sano ayaan dowladnimadeena iyo dhaqaalaheena iyo xooggeena isku geeyay waxay noo dhalisay kuwii dariska inayna nacaan oo noo tashtaan oo noo midoobaan adduunkuna inuu faraha kala baxo maxaa jira dowladaha waa la maalaa dowladdu waa qof shakhsiya wax nala dhaqmi kara la waayo waxay dhaqaasi cadow inagu dhisay 30 sano hadda dambe xoolaheeni iyo hantideeni waxaan ku bixinay saan isku qaybinay xoogaa ganaysanay saa u kala daadin lahayn haddaana laga tagin
meesha aan ku jirna maanta waxaa noo bilaamaysa 30 baan soo qaadnay 30 kale oo ku daranay xuduudkan yaala reerkee ku jira iyo kala go' kale islaamka u laabano iimaankeena u laabano waxaan idin leeyahay annaga bililqaysanaan soo celin waxaan ku faraxsanahay kuwii cadowga shalay ah cadow maaha maanta yaa inay maskaxda nooga dhigin Ethiopia ma waad ogtiin change baa ka dhacay dalalkii annagu aan u dagaalami jirnay dadka ayaga maanta na dhaama adduunkiina qolo walba meesheeda isku wareertay wixii hore ma jiraan maanta meel baa noo bannaan Ethiopia iyo Kenya annaga waa walaalaheen waa saaxiibadeen dadka nooga jiraana waa bridge-kii biiska noo isku keenay xagga inaan ku jirno annaga inoo danta aan gallo aan la qabsano taalbaan qaadno waxa aan ku jirno oo ninka qabiilku waxa kaliya uu na gaarsiinaya markuu siyaasad noqdo wuxuu na gaarsiinayaa waa sii wada lahaa laakiin waxa weeye qabiilku kala qaybsanaan iyo joogto dagaal ku sii jireen waxaan ku soo gabagabeynayaa adinkana inaan wax ka sheegaan rabay laakiin waxaa maanta iskala raggii ila socday marka waxaad yeelaysaa meeshaan dhibaatada waxaan arkay waxa weeye laba hay-adood baa jirto maanta aan ku tiirsannahay wax qabta waa masaajidada iyo ururada masaajidada iyo ururada wax qabanaya fard ku tilmaankoodan waqtiga ku dhamayno waninkii nimankaas wax ku darsanaya ha ku darsado kii wax iyaga ku laciif yihiin yaqaan ha bedelo ha galo midka kale oo wax kale la yimaado farku fiiq iyo isdabaqabsiga ka daala qabiilkana booskiisii siiya haddaan qabyaalad ku dhisno 30 masaajid oo ay ka faa'iideysaan 30,000 oo muslimiin ha fiirina dadku maxaa jira ma isku imaan karno beeskeena asaga ah magaciisa iyo sharaftiisa waxa weeye wanaagiisa aan isticmaalno dadkana ku qaybtano waxaan ku soo gabagabeynaa ururka waa dhaweey waxaan isiri wax sidii uu loo wareeray wadaad ilaahay soo diray sheekh maxamed dirir la yiraahdo ayaa masaajidii yani ma ilaahay dadku waa kala waxay u helay inay midoobaan maalintaas raja igash oo waxaan isiri bas weey marka hadii wadaadadu noo waxaystaan halkaas ka socono laba nin oo in noqday wiilal aan uga dhawaaday qoyskoodii priority waxa ay anaga iskale xaajada loo sheego Saciida ku jira hadii la ha baxdo gaaray waxa weeye Dr. Maxamed Muuse Munya Qaasim iyo Faysal baan isla kuwaana ku duul hawshaan gal waxaan soo marnay ogtiin abaarihi inta la marnay ogtiin waydii dhibaato ka dhacday xagga gobolada kale yaani xamar waxad markaasaan abaari xagga haday dhamaadeen kuwaan dhalinyarada wax ka qaban waxaan rabay inaan ku soo gabagabeeyo ururkii waxaan eri ururkan waa inuu noqdaa urur ay community leedahay oo ownership ka anagu wixii aan la baxno maxaa jira hadii aan dawladda ku xirno kuwii kale kama duwanaanay dawladdu shuruud bay la imaanaysaa advocacy waa rabaa hadallo oo dadka halna ka qabto ilmaheena inta la dilo in la waayo wixii dilay in isdilaan oo la yiraahdo wad ogtiina keena anaga naloo diro ayaa jirta aan wax qabsano waxaan se idin sheegayaa in waxaan dhibsado waxa kamid ah wadaadada يعني إني مساجد كعليس كسر كبدون وين لكن أي هلي كران أنت عليس كويس مان أنت كلين استعمالان من نقول مساجد كوحكة الصعودة قطبة يدين يكتاب وحفي عنه لكن وحن مودا الدين إنه فرس وكله ومد أنت كلون سان إيمان اللوتو كوريها اللوتو دad كان حراضي waxaa la noqday ninkii cilmi lahaana waa ka baxay wuxuu yiri anigu Soomaali ka qoust yaana la ka qoussan waa isku baahannahay
ummadeennu jiritaankeedu wuxuu ku xiraan doonaa ilmaheenna sa u badbaadi marka waa dhowr jeer baa la celiyey laakiin wax kalaan sii rabay ma ku sii wadaayo adinkana waa idin turayaa waxaan rabaa aad iyo aad iyo aad horta inaan idinku mahadiyo waxaad iga sheegaysaan iyo waxaan ahayba intaad iga sheegtaanba ay taabanaysa waxaad ogaataan intaas iyo in ka fiican oo idinku jirtaa isku dulqaadan aan iswadno waxaan si gaar ugu mahadinaya guddigii arrintan inta badan ila soo waday soo dadaala ayaan ku dadaalaya waxaan idinka codsanaya kulligeen caradii inta marmarka iska caroodo ninkii gacanta xumaanta iga tirsanaya in la cafiyo anigana cafis baa iga tihiin waxaan idin rajaynayaa maanta inay idin noqoto taariikh aad ku xasuusataan wadaadkii 70 jiro noo yimid mar inaad ku xasuusataan wax ku qabsataan khayr allah idin siiyo allah idin barakeeyo salaamu calaykum سعيد صنع أما سعيد محمود حاجي أو عاد مركي يران تيدين عن حفظي سان حفظ هين مرة بدنا عن علاش أنت عن طريقة عن عديان هلي كرو حصوص راب أما طريق راب صحافة الصومالي اللي جرب أيها هذا سقوا برسل هلا يمكن أركي هذا نقول فرحي تاس زرادة وحن علاش تنا تذكر له داعو والسلام السجا إيه الكيس يا قرابدي سي دمان وكال دورك الصومالي صنع وحي كهري أنتي نول الله عافية أنتي دمتنا الله ونحرسته وأنا جعلها إن برنامج كانوا حيابنا كفايدين عادي يا أم سنتين